رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. حافظين ذاكرين قانتين خاشعين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين. أنا waxay muuqataa inay gobolbig ay u sii tahay arrinta berrina waa in la qabto howlka iyo charity-ga la abuuro inay gobolbig ayay muuqataa. haddana waxaan ku wareejinayaa rag ay qusaysay kulay tabanno خيار شرفت له الشركة كسوق القشري مقالة وسلامتين يوم مقتله نرجو تعاوى بوله وهل كان أني سني وباركتي ترك الصبح وأنا اللي ضد كان اللي بعطي سن تجعلنا يجاتشة يرفعت يعرضنا دربة يكون هيستمر شانوي عن صور كي الراسو هذا إنك استوى سني المودي أين تدخل معنا الحمد لله واللي في عيني هاي intana nin oo isu timid oo dan guud ay ka dhaxayso oo hal mar caawa inay meesha ku wada casheeyaan oo ay wixii hawshan shirka berito la dhici doonana ay si uga qaban lahaayeen ay ka qabtaan oo ay kasii wada tashadaan buulana wixii dardaarana iyo wixii uu nafaraya iyo sidii aan hawl ula qaban karno uu isaguna nagula dardaarmo. marka anigoo Waliid Cabdullaahi waxaan jeclaan lahaa inaan hadalka ku wareejiyo buule oo aan ka codsado wixii warbixinaya dhalinyaradan iyo guwaabina oo hadda reer London kulanka berri ah iyo informationka guud ahaanba hawsha uu wado iyo sida ay u socoto uu naga siiyo. marka buulan ku soo dhaweynaya halka adigoo mahadsan ku soo dhawow العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه دمان dhalinyaro walaalahay ah waa salaamantiin boqolkiiba aftan salaamiya. magacay waxaa leeyahay Cabdullaahi Maxamed Axmed laakiin waxaan ku magac dheerahay Buule. waa naanays magacayga ka weyn oo habeenkii aan dhashay lii bixiyay. waxaan nahay dad wada dhashay oo idinka wada ku yimid ka weynahay. waxaan adeerkay ka mid ahaan walaalahay tihiin. inta marka hore barasho wanaagsan inaan ina barto oo maaragtay caawa ku wada cashayno London gudaheeda farxad bay ii tahay. wax kastana waxaa ka wanaagsan wada dhalashada iyo barashada. dadkaan is aqoonin dadkan wada dhashay hadday is aqoonin waxba isu maaha. laakiin maanta waa idinka soo qaban karaa jidka berrito aniga wallahi waa in adeerkay waa adeeraan u ahay kulligii mataqaanaa taasaa farxadiya inaan idin barto. marka labaad waxaan ku noolahay dalka Australia since 1981 waa 27 years. daadiina waxaan wanaynaya markaas inaad ku yareedeen balbaldiina 27 years ku noolaa Melbourne. 40 sano ugu horreysay waxaan ku noolaa magaalada Sydney oo magaalada ugu weyn Australia. Melbourne waa magaalada ku xigto. طلعان وهم بدرنا الحمد وعدد وجوبنا ومعرضتي wax istarta taranka iyo suugaan wax badan ba faqo Umar baan nahay nooc musteeyihiin waxaan faqo Umar kiboo soo imaana taranka wada bixina wixii wanaag ah oo waxna wanaag ku jiro wada shaqeynaa wixii xubna Ilaahay naga wada qabto oo maartay islaamku duulid iyo dhibaato iyo sidaana Ilaahay naga qabto. laakiin wixii xaq ah oo tolkeen aan tiri karno sanad istiri karno ama Soomaalida kale aan tiri karno waan sameynaa. intaa kadib safarkayga wuxuu ku saabsan yahay fundraising loo sameynayo isbitaal ka dhismayo magaalada Raaso oo ah magaalooyinka adduunka maanta jira tan ugu yar in la dhihi karo inay tahay ama magaalooyinka asaasmayo ama meelaha la degay deegaanka ugu yar uguna cusub inuu yahay. mustaqbalkan aan rajaynayno kan ugu weyn uguna isma wanaagsan bini'aadamka oo dhanna ku soo hirtaa inuu noqdo ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa
gaalo iyo muslimba intii mataqaanaa uu qaadayo si sharaf leh wanaag ay ku wada noolaadaan ayaan rajaynaynaa. raaso badidiina waxaan u malaynayaa inaadan tegin laakiin maqalka uu idinka batay sidiinoo kale ayaa ka ahaa few years ago markii la fiiriyo 2005 ay ka bilowday. raaso ma aan aqoonin iska daa raasa Ethiopia aan aqoonin weliba nolosheeda ma tegin xuduud Ethiopiana ama dhinaca ha noqoto doolow ama dhinaca feerfeer ha noqoto ama dhinaca abtaqa hargeysa ha noqoto meel weliba ma tegin. muqdisho aan ku dhashay meel yiraahdo ceelgaab ama bulutore ceelgaab ayaan ku dhashay. waxaan wax ku bartay muqdisho waxaan ka tegay 79kii anoo sanadka saddexaad midisiin ah jaamacad midisiin ayaan ka tegay. waxaan naga tegay political reason macallimiinta kamid ah professor ahaa oo aan isqabanay si kacaannimo iyo mataqaanaa noola diriiray aniga dhalinyaro kale dhalinyaradii ka carabta ayaan kamid ahayn. Djibouti aan ka galay meeshaasaan Sacuudi ka aaday. Sacuudi markaan 2 sano joogno waxaan aaday Australian aaday sidaasaan naga tegay wadankii. raaso marka waxay ugu horeysay 2005 ay ugu horeysay dagaaladii badnaayo ka dhacayay ama dhibaatadii lagu hayay oo aan ka dacwooni jirnay honorable council oo jooga magaalada Melbourne oo cadaan ah Australian ah oo maaragtay aan meesha u sheegi jirnay. 2005 wuxuuna yiri anaa tegay sababa raacaysaa Cabdulle markaas waa ku raacayaa si aan wasiirka arrimaha dibadda iyo wasaaradaha iyo kale iyo aan raaso aan u tago aan raaso u tagno sidaas ku raacnay. waxay raacay dhowr dhalinyaro ay raacday oo ka mid yahay Fuad Cabdiraxmaan Sanay iyo Mahad walaalkay iyo mataqaanaa Mahad yiraahdo saddexdeena ka baxnay magaalada Melbourne. may afraan ahayn Fuad iyo Cabdiraxmaan Mahad yani afarteena Melbourne baan ka baxnay. waxaa ka soo baxay Mareykanka Cabdiraxmaan Maxamed Shiino ayaa ka soo baxay yar kaloo la yiraahdo Abshirna wuxuu ka soo tagay Canada. 2005 baan tagnay Ethiopia ninkii na raacay wasiirka way suurtooweysay election iyo mudaaharadyo badan iyo dhibaato oo aan sabab ka socoto markaa daraadeed uu bixi waayey. wasaaradda arrimaha dibadda uu galan waayey inuu meel kala aado uu naga haray. markii waxaan bilaabnay lobbying intaan raaso aadin inaan lobbying samayno oo aan iska samayno wasaaradaha hay-adaha internationalka inaan u tagno oo aan weydiino raaso maxaa u qaban doontaa. meelo badan baa tagnay waxaa kamid ah World Vision baa kamid ah waxaa kamid ah Oxfam British baa kamid ah waxaa kamid ah international Red Cross International baa kamid ah waxaa kamid ah heedoo kale WFP oo maaragtay raashinka qiimaysay intaasoo dhan baan baadidooda aan garaacnay. waxaan loogu darnay World Vision waxay tiri kama shaqeynaa ka dhinaca Soomaalida waxaan ka shaqeynaa dhinaca kale ka shaqeynaa. Oxfam British naagtii haysto Ingiriis ahayd manajaradkeena waxay ugu tiri ma tegi karo raaso haddaan raaso tago birna xafiiskayga waa la xirayaa. in aan dhumiyo 77.7 milyan ku nool Ethiopia inaan raaso dhumiyo ayaa ii roon. haddaan aado political xafiiskayga waa la xirayaa iyadoo xitaankaas ay kilalka Soomaalida ay ka socoto ay noo ogoleen inaan tagno meesha. Red Cross oo kale waxaa haysatay gabar Sarah Wilson la dhahay Australian ah ayaa madax ka ahayd oo magaalada aan joogno magaalada aan ku nool aan meesha ku barano mas'uuliin isu sheegnay. xaafadda Camberwell ku nooleed tiibaan ka codsanay si maaragtay Australian ahaan ay noogu naxariistay ay u dirtay team u dirtay raaso oo ay mataqaanaa waxyaabo geeyeen raashin wixii household waxa la dhahayo koobab iyo maaragtay kuwa la saaro bambirada la saaro guryaha maaragtay la saaray iyo teendhooyinkii ay geeyeen. waxaan ku soo aragnay raaso markaas ku gaadhnay waxa aan raaso ku soo aragnay waxay ahayd waxyaabo oo aan runtii qof bini'aadamka ah maskaxdiisa geli karaynin dhibaatada taallay. waxaan u tagnay 410 iyo dhowr oo ah yaamiin ah oo xabad lugta goysay mid lugta qurantay mid xayaha ay tuftay mid isha iga dhacday mid gacmaha iga dhacday. wax la qiyaasi kara maaha. meydka aad buu u tiro badnaa dumarka asaaga saaran aad buu u badnaa. agoonta 530 agoon ayaan ugu tagnay. wax bini'aadamka qalbigiisa iyo niyadiisa ka yani aan qaadan karin ayaa jiray. laakiin morally dadku waxay ahaayeen dad tacsiis ay ahayd tacsiis saaran bay ahaayeen laakiin morally baahi badan way jirtay abaarna way jirtay. October 2005 bay ahayd laakiin moralka dadka
dad wax ku dhacay dhibaato ku dhacday ma moodin nin kastaba wuxuu leeyahay alxamdulilah ilaahaygi mataqaanaa noo kastay sidan shalan si aan ku nool maanta si aan ku noolnahay berrina asaan ilaahay umaa ka warsugeynaa waxaan u tagnay dad is haysto oo walaalo ah oo aan kala lahayn hebel iyo hebel saas iyo saas dad isku xiran rag iyo dumar culimmadooda maamulkooda is haysta ayaan ugu tagnay oo maaragtay aan la qiyaasi karayn runtii sheekh hadaladiisa waxaa ka mid ahayd markaan tagnay dadkiina dhexgala barta dadkii dhibaataysnaayo tacsidii saareed oo soo saakid indhaha ma kala qaadin oo magaalada suumeeka magaalo tacsidii lala wadaagayo dhibaatadii dad walaalahooda isbedda ga imaaday soo faraxa iyo magaalada soo ma arkaysaa qof idinka mid naga mid ah hadduu tago magaaladaas waxay noqonaysaa xaflad bay noqonaysaa waxay noqonaysaa carruurta inay ugu soo wada cararaan dumarka adigana aad noqoto qof dadkii dadka u dhashay dibadda aga yimid oo maanta ay noqonayaan farxadda iyo sida ka muuqato horta intaa hadalkayga sida waxaan idin dhihi lahaa mid kastoo idinka mid ah qaaraanka aad bixinaysaan $100 ama $500 ama waxa aad bixinaysaan ama kuwa aad bixinaysaan inta aad tikid ku goosataan meesha taga intii tagtaad sheegi karto hooyada ugu dambeeyay dadka tegey ninkii tago meesha unbaa sheegi kara waxyaabaha soo arko iyo culayska soo koro iyo mashiinka soo koro maaragtay waxqabashada ah markaas uu dareemi karaa marka waxaan ku tan lahaa qof kastoo idinka mid ah inuu tago soo arko magaaladaas dad ku nool waxa dibadda laga sheegayo hebel ay haysto maamul baa lacag cunay shuuqi baa is haysto saasaa is haysto wax dibadda ka socdo waa gudaha wax ka jiro oo ilaahay uumay oo maaragtay male sheekh cabdulqaadir baa ka ah ninkii imaamkii meesha ninkii ma aha nin maamul siyaasadeed maaha laakiin nin ilaahay noo soo diro diin martaba ilaahay ka joojiyo oo qof kasba ciseynaya sheekh cabdulqaadir waxaa ka mid ah sheekh cabdiraxmaan maxamed khaliifaa ka mid ah culamada kalaa ka mid ah maamulkaa ka mid ah dad ilaahay maaragtay soo diray oo aan dad yani ku xadgudbaynin shina la dirayna ku saqajaamaynin ayaa meesha joogo haddiina la yiri dibadda haddaan joogno lacag baa la cunaa lacag baa saas u heshay hebel baa lacag yeelay hebel is haysto waxaas wax ka jira male waxaan tagay dhowr kala 4 shan baan tagay taas waan arkay waan exam gareeyay waan darsay waa meel ilaahay ogyahay xaaladdiisa Soomaali maanta maamulka raasiga la hadduu Soomaali maanta ay ogolaan lahayd dibka Soomaaliya maanta inuu xalleysmi lahaayeen aaminsan 100% maaha 190 maaha 199 100% I believe in xal loo heli lahaa intaas waxaa helo dad ilaahay nasiib siiyey ayaa helo marka aan u soo noqdo projectigeena sorry maaha projectigeena aan u soo noqonay isbitaalkeena aan ilaahda marka siduu ku yimid isbitaalka fikradiisa jamaal sheekh cumar siyaad sheekh cabdullah qudbi ayaa markaa dhakhtar ka ahaa dhaawicii iyo dhibaatadii ninka daaweynaya ayuu ahaa jamaal hadalladii aan weydiinaynay ayaa waxaa ka mid ahaa jamaalow maxaad jeclaan lahayd noloshaada inaad aragtid raaso noloshaada intaad maxaad jeclaan inaad aragtid wuxuu ahaa nin dhaawac subaxdii markuu bilaabo 8 o'clock galabta dambe ilaa 4 o'clock from case to case guriga maarta dhaawac yeelo guriga kuwa hadduu dhaawac ka laba dhaawac yeelo oo dhayayo faashid saan mid daawo looma hayo waxaad maysaa waxyaalo geed uu dhiso waxyaalo u mari ka tag kan bukaan fiiri oo shalay aad tagtay marka sidee tahay galabtii wuxuu ka baxaya 4 o'clock soo daalan markaas waxaa wuxuu yidhi waxaa ii ficnaan intaan dhibay inaan arko isbitaal reerfaq cumar leeyahay oo dumarkooda lagu dhalinayo dhaawacooda lagu daaweynayo dadkooda waxaas lagu daaweyn inaan arko ayaa jeclaan lahaa markaan weydiinay dumarka waxyaabaha ay rabaan ay leeyihiin isbitaal waxyaabaha aan leeyahay waxaa ka mid ahaa education ka waran ninka hadduu wax barto wax isbitaalka beri asaa samaysanayo ka waran ceelal iyo ka waran iskuul iyo waxaas dhan waxaa nooga horreeya isbitaal marka xanuunka meeshuu gaarsiisan yahay waad fahmaysa waad garan kartaa horta aidiyada waxay ka timid in dadka meesha ku nool afkooda iyo rabitaankooda inuu isbitaalku yahay muhiim lagama maarmaan ah inuu yahay sidaa horta afkartib aan u qaadanay waan ka soo noqonnay 2005kii November halkaan ku soo maray 2 habeen baan joogay London 2 habeenna guriga habeen waxaan seexday guriga Muuse Sheekh Xariir
guriga cabdiqaadir girgiri airportka laga soo qaaday la keenay habeenkii waxaan ku kala tagnay around 4 o'clock in the morning ayaan ku kala tagnay muusaan israacnay gurigiisaan seexday subaxdii markaan gudada ka soo kacnay cabdiqaadir gurigiisaan kusoo noqonnay haddana waxaan ku kala tagnay midnight iyo amsabana kula kala tagnay suldaanka gurigiisa maxaaji ayaan raadinaysaa subaxdii dambana waan ka baxay magaalada meel ka mid a inaan London tegin intaas shiraan ku jiray dadka aan u sharxay waxyaabahan soo arkay iyo heartbreaking dadka ku malsan yihiin kaamil u baahan yihiin ilaahay wuxuu yiri ummaddiina yani iskaalmaysta iskuna kaalmaysta mataqaana wanaag iyo sida ilaahay mataqaana ilaahiisu yahay dad laba dhashay oo baahan oo dhibaataysan oo u baahan kaalmo u baan ka hadlaynay kama aan xaajoonaynin inaan dadku dulno inaan dad dulno inaan dhibaato samayno si aan mashruucyo horumarin dadka aan u islahayn baan ka sheekanaynay kaana waa waajib ilaahayna saaray ama gaal iyo muslim ninka dadka uu ka dhashay inuu development u sameeyo ama horumariyo xaq uu leeyahay marka xuquuqdii lagu lahaa qayb ka mid ah unbaan dadka tolka aan u sheegaynay waan ku kala tagnay in idinkana waxaad qabataan reer London odayaashiinii annagana meel kastoo joogno inaan sidaas oo kale aan u orodno mashruuca aan u qabanno markaan noqday ayaan bilaabay inaan meelo ayaan garaaco waxaan ka bilaabay qolo la yiraahdo December baan ku noqday meeshii Decemberkii iska holiday bay ahayd waa waqtiga Christmas baa soo galayo New Year baa soo galayo waxaan bilaabay 2006 January aan bilaabay inaan dhaqdhaqaaq sameeyo qolo oo ma la yiraahdo Mayur Community Service oo xaafadda deganaa ku taal xaafad weyn ah ayaan ka ahay board of management aan ka ahay 9 qof oo board of management ayaan ka mid ahay board of management baa hordhigay oo aan inay dadka meesha ku nool xaafadda Helboog dadkoodii ayaa ku nool magaalooyinka DBT videoga soo qadan aan tusay waxaan ku empower community ku nool meesha family ku meesha ku noolaa waxaa loo baahan waxaan u baahan saraan dhisno mix qoladii balmow oo aan ka ahaa board of management ayaan hordhigay in dadka wax loo qabto waxay yiraahdeen Afrika oo dhan bay ka tagaan tani waa saas adiga excuse oo kan markaas ay sameeyeen adoo lagu testgareenayo waxaan dad miyay ka yihiin soo waxaan adoo ku kacsanaysa markii aan wax ku waayay ninaan saaxiibnahay oo meel ka ah pub pastor oo father meel ka ayaan oo ka haysto ayaan oo alan heeman alan dhahay dhibaatada jirta kan wax ma nagala qaban kartaa qolo waxyaabo aga sameeyay mashruucyo East Europe oo ka sameeyay sida Romania Bulgaria oo ka sameeyay orphanage iyo dhulsaas ka sameeyay waxaan dalba qaban karnaa waan sameeynaa wax isbitaalina dhisayna waa ka dhisi karnaa together taas kaalmeeyay sidaas aan fikrad ku bilownay marka dibna qolooyin mataqaana big organization oo la yiraahdo international mobile mission international yiraahdo san school iyo isbitaal iyo oo ay mataqaana la tagay asiga contact wadaha team mataqaana kuwi baa yiraahdo okay waa design anaga design sameeyno frame ki idida ayaga keenay inay sameeyaan laga dhiso sidaas ku timid 2006 ayuu journalist diyaariyay in uu raaso tago oo ka soo qaado more information July 2006 ayaa journalist ayaa ka kaxeeyay Melbourne oo aan geeyay raaso wuxuu la joogay dhowr iyo 10 habeen oo documentary ka soo sameeyay ka ayaa markaa arrintii kor u qaaday dadkii cadaankii ay arkeen Australiankii ay arkeen sidii baan isbitaalkii diis ku bilowday sidii baan mataqaana aan ku bilownay inaan birihii iyo mataqaana aan galno si loo gogol lahaa iyo loo iibin lahaa lacag waxaan u yidhaahdaa bildingkii waxaa ku kacaysa $109 ayaa ku kacayso 3 bilding waa $377,000 laakiin qaarna anagaa dhiibayno inta badan waxaan ku shaqeynaynaa free frameka gata qaarna aan ka bixinayno framekii adiga ilaa 22,500 ayay yidhaahdeen iska bixiya qoladii baan ku noqday haddana waxaa leedahay intaana noo maxaad maraysaa project nala qabta markaas waxay leedahay xilligaa self before we help you idinka horta bilaawa aan aragnay dadkii baan kulmiyey tolkii 2 wiil gudahooda ayay waxay ku soo wariyeen $25,000 sidii baan hay'adii ugu dhiibnay markaa kadib hay'adii waxay ogolaatay oo maanta ka ahaa board of management inay
wixii fan la soo galaa iyaga ay osposi noqdaan ama sponsorship ay noo noqdaan inay mataqaanaa ay xafiis awal aan ku lahayn inay qalabeeyaan xafiis weyn ka dhigaan oo projectkan lagu rangareeyo si uu meesha in waxaa la yidhi la shaqeeya cabdaldi night meel kastoo ku sameynaya lobin ama speech ka jeedinayo la soco lajin waxay noo noqdeen foundation bay noo noqdeen qoladii maaragtay waad aragtay soomaali intii la yahay markii shilinku soo galo berri waa la xaganayaa shilinkaa hebelaa cunay shilinkaan hebel cunay waxay noqday dollarku soo galo inay ayaga ay qabtaan siiyaan tax deductible ay siiyaan dadkii oo aan kula xisaabtano monthly meeting inaan galno board mataqaana waxaan sameynay management oo ay leedahay organization aan furnay oo la yidhaahdo raso relief rehabilitation and development organization waxaa ka soo qayb gala caddaan 5 caddaana iyo 4 soomaali ayaa boardka ku jira monthly meeting baan leenahay bishaan wixii la sameynaya ama la qabanaya waa laga wada xaajoonayaa accountability way noo soo gudbinayaan qof dadka waa la fiirinaya wixii la soo galay see u baxeen iyagaa ka mas-uula waxay noqotay inay gacan bir ah iyo trustiga ay imaato mar hore maqli lahaydeen meel walba lacag baa la isku haystaa isbitaal lagu cunay iyo saasaa noqotay iyo wax kasta waa clear cut wax miiskaa la soo saaraya meetinga bishaas wixii soo galay wixii baxay waa laga wada hadlayaa sababta ku bixeen meesha ku bixeen waa laga wada hadlayaa projectiga meeshuu maray iyo waxaa na haysto waa laga wada hadlayaa sida marka ninka kaloo caddaanka ah wuxuu diyaariyaa dadka dhismaha samaynayo injineerada iyo baramarka kulli waxaa laga diraa ninkaas mataqaanaa faadarka ahaa diro ticketkooda ayagaas ka bixiyo from Melbourne ilaa Raaso expensigooda ayagaas ka baxo yani knowledgekooda ayagaa wato last year keliya waxaa tagtay ilaa 12 caddaan ah 11 iyo mid dumar ah ayaa tagay marka waa garan kartaan raiska uu leeyahay meesha waa garan kartaan alxamdulilah June last year waxaan dirnay 2 container ilaa iyo August midna waa 40 feet container midna waa 20 feet 40 feet waxaa ku jiray 6 sariir isbitaalka waa 100 sariir 6 waa Australian standard haddii la African standard ilaa 100 konton waa gaarsiin kartaa 6 sariir iyo qaabka isbitaalka badiisa naagaha lagu dhaliyo mashiino badan waxay ku jira containerka 40 feetka annagaa iskale 40ga kaasaa la geeyey alaabta waa laga dejiyey containerka kaasuu yaallaa kan kale waxaa ku jiray 20ga ah fareemadii iyo wixii wax lagu dhisayo dhan way ku jiraan ayagana taasna alxamdulilah way noo tageen shamiintadii iyo slaabskii waa la dhigay wixii birihina maashi siyar baa loo darkiyo caawa waxaan jeclaan lahaa inaan laptop aan wadano laptop iyo mataqaana ama aan fiirsano DVD halka aan kula fiirsanaan jeclaan lahaa laakiin insha allah biri adarkeysaan meeshuu marays uu yahay waxaa kaloo ay gaala caddaanka ay qabteen waxay geeyeen technology ah lukeetiga la sameynayo mad brick wax la yidhaahdo lukeeti laga sameynayo clay iyo grass isku dhex daray isku qasay oo maaragtay shamiinto lagu daraynin oo sizeka lukeetiga ah culayska lukeetiga ka xoog badan adkeysashada u adkeysan karo qorraxda iyo biyaha iyana ay ka adag yihiin ay dadka bareen 3 gudahood waxay ku sameeyeen 10,000 oo bulkeetiga ku sameeyeen kitaabka waxaa geli doona 70,000 oo bulkeetiga galayo inta kalena way mataqaana insha allah way u soconayaan waxaa shaqaalaha 30 shaqaalaha ka shaqeynaysay markaas bulkeetiga sameeyay ma sameeyno oolin mixing cementing machine ka qaso ay muusan oolin hadda containerada aan geeyna ayay ku jireen waxay ku qaadeen dhalinyaradu waxay ku qaadayeen jawaaniya ay dhaaxda qabanayeen inta cooskii shubay isku qasan ciidda lagu shubayey waxay aragtisada ka disaangareeyeen dhowr waxaa ku jirtay bulkeetiga sameeyey containerka laakiin way ka maarmeen waxay bir ayay sameeyeen ayaga disaangareeyey hadda sababa oo 9 xabo 9 god leh oo bulkeetiga iyaga ku sameynaya waa waxay ku jirtaa DVD bita ayagoo sameynaya marka taasna way ku guulaysanay insha allah taala waxaan jeclaa raaso mustaqbalka bulkeetiyaashaas 10kii familiba inaan siino 2 mashiin intaan siino ayaga samaystaan bulkeetigooda waxay u baahan yihiin iron sheet bay u baahan yihiin oo jiingadi bay u baahan yihiin iyada insha allah waan gaari doonaa taasna waa taa isbitaalku wuxuu marayaa meel fiican buu marayaa July next year inaan July ilaado uu furmo ayaan rajaynaynaa oo aan ku bilaabo dadka ugu horreeyay dowladda Itoobiya waxay noo ballan qaaday dhakhaatiirtii nurseski iyo wixii daawo dowladda Itoobiya noo ballan qaaday memorandum of understanding-na mataqaana waa kala saxiixanay waxa inay iyaga qabanayaan waxaa naloo xareeyey 5 arday oo ah nurses ah ayaa lagu xareeyey magaalada Harar already bishii February ay bilaaween oo baranayaan nurses
وأنا راسة ما راسم كله راسة لقى مقادم لكن داشي وقشة راسه تختار أنا والله قري وما أعرفي أكدمي أنا وهذا كشف فيه بس الشاع marka waxaan gaarin runtii ilaahay naguma qasaarin orodkeeni waxay rabtaa wax kastana in la geliyo dadaal in la geliyo rabtaa the last since 2005 ilaa hadda ilaa maanta shaqo aan leeyahay dan aan leeyahay aan qabsaday ma jiro waxaan u ordayay tol iyo dadkaas masaakiinta aan u ordayay waana ku faraxsanahay waan garan kartaa nin lix caruur baa ii joogta magaalada Melbourne kala tagna hooyadu u baahan xanaano iyo tixgelin iyo mataqaana eedtoodii iyo diintoodii loo dhowro intaan yani ka tagay aan indhaha ka qabsaday ayaan u kacay dadkaas masaakiinta hadaf aan ka wato male siyaasad oo aan rabo inaan u loolamo oo maaragtay aan u qabanayo bise aan rajo iiga jirto male haddii ay siyaasad soo gashana maanta idiin sheegay wax niyad iyo siyaasad aan ka rabo ama aan reer Fogo Cumar aad ka heshisha aan leeyahay ma jiraan waxaan u qabtay ilaahay wejigii iyo dadkaan lala dhashay iyo shuyuuqdaas Sheekh Cabdiqaadir ugu weeyahay efadka iyo dadaalka ay sameeyeen oo ay mataqaanaa ay tii ayaga ay qaban kareen ay qabteen tii kale ma ay u baahneed dadka qurbaha jooga ay qaban lahaayeenna aysan helin unbaa ay kicisay aniga bilaaw baan ahay waan bilaabay dadka looga baahan yahay waa idinka dadka soo kacayo dadka wax bartay dadka qurbaha ku nool western life arkay mataqaanaa testiga mataqaanaa ay horumarka leeyahay arkay waa idinka idinka baahan yahay inaad qabataan waxyaabaha loo baahan inaad qabataan haddaad laakiin ku mashquulshaan kaas waxaa laga soo sheegay lacagta la diro hebelaa qaatay ama hebelaa qaatay waa been wax ka jira male caloosha shilka aad bixinaysaa waxaad ku aamintaan ilaahay wejigaada u bixiyey ilaah ummadaasaad siiyey kii meel xun mariyo aakhiradiisa ayay jirtaa laakiin markaad adiga hadal ka dabageysid oo lacagtiida xaggee martay seeteed markay jeebkaada ka soo baxayso way xanuun badan tahay waan ognahay laakiin ilaahay wejigiisu dhiibay ilaahu adanka wejigaada u dhiibay ilaahu waxaa u dhiibay in ay ku baxdo umma masaakiin in la siiyo oo mataqaana kuwa kula dhashay kuwa qofka islaamka aad siinaysid sadaqa aad bixinaysid waa sadaqa waajiba marka waxaad bixisaan ilaahayna u bixiya aamina waxaan idiin sheegayaa lacagta 100% meesha ku dirtaan inay ku baxayso ayaan 100% guulin waa soo arkay inta kale lacag culamo meesha joogto ay u baahan tahay maaha nin kasta wuxuu haystay feero dhan ayuu u ahaa amiir u ahaa laga dambeeyey oo maaragta wuxuu rabo la siinayay intay ka soo tageen ay maanta raasikuuda gaajiysan yihiin ay ku ahad la'yihiin ay ku kala la'yihiin oo ilaahay muu qof ogna uusan jirin dadka la leeyahay wax bay cunaan dad wax cun u baahan maaha waa dad ilaahay wujuusu u baahan caalimiin wada ah nin hadduu ilaahay yaqaano caalina yahay yani shilin uu nin naar ku tegayo qof maanta qof wax ku doortanayo male marka taa waa taa kitaabkii arrintiisa meesha maraysaa waxaan ka soo tegay last year waxaan galay September last year ayaan galay habeenkii hadda Ramadaan kow ahaa halisadaan galay waxaan ka soo tegay aan ku mashquulsanaa containers waxaan registraadayay international NGO oo Raad Relief ayaan ka registraadayay sababa in badan baa iga soo maray 4 bil ayaan ku socday xafiis ayaan 4 bil iyo bar ayaan ku socday oo aan mataqaanaa wax lacag soo gaaray oo aan ka helay Fogo waxaa ka jiro $1 Cabdixakiin oo la fadhiyo maanta ay fadhiyo uu soo diray laga yaabaa ay dib badan ka soo gaareen waxay ku Yes. Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان walaalahay tihiin horta marka hore barasho wanaagsan